السلام عليكم. maanta waa xalqadii sideedaad ee taxanaheennii Maqoolka ama Tataarka. Markii uu Holaako ka farxashay magaalada Baghdad, waxa uu degay magaalada Hamadan ee ku taala dalka Iiraan. Markiiba waxa ku soo qulqulay wufuud fara badan oo ahaa boqorada maamulada Islaamiga ahaa ee ka agdhawaa Baghdad. Boqoradaasi waxa ay sideen hanti tiro beeshay oo ay hadid uga dhigayeen Holaako si ay u helaan raalidiisa, iyada oo weli aanu qalalin dhiiggii muslimiinta ee lagu gowracay Baghdad. boqorada waxa ka mid ahaa al-Amiir Badruddin Lu'lu oo ahaa amiirka Muusil, waxa ka mid ahaa amiirkii Kawskii labaad iyo Khalj Arsalaankii afraad oo labaduba ahaa boqoro ka mid ahaa dawladdii Salaajiqada ee ka dhisnay Turkiga, Amiir al-Ashraf al-Ayyubi oo ahaa amiirka magaalada Hims, iyo al-Amiir an-Nasir Yusuf oo ahaa wiilku awowga u ahaa Salaaxaddiin al-Ayyubi oo ka talinayay Dimashq iyo magaalada Xalab. balse waxa soo waajahday Holaako mushkilad aanu marnaba talada ku darsan. hal boqor ayaa diiday inuu hoos yimaado Holaako jihaadna ku dhawaaqay, kaasoo ahaa al-Amiir al-Kaamil Muhammad al-Ayyubi oo ka talinaya magaalada Miyafarqiin oo dhacda iminka bariga Turkiga. Holaako way u cuntami weyday falka uu ku kacay al-Kaamil Muhammad, sida awgeed dhambaal ayuu u soo diray uu kaga dalbanayo inuu si degdeg ah u isu soo dhiibo. dhambaalkaana waxaa siday nin Kristan ah oo Carab ah, isaga oo Holaako uga dan lahaa inuu dareensiiyo al-Kaamil Muhammad al-Ayyubi in maamulada Kristanka ahi ay isaga la jiraan. markii fariintaasi soo gaadhay al-Kaamil Muhammad al-Ayyubi, qorta ayuu u dheereeyay ninkii Kristanka ahaa ee dhambaalkaa siday, isaga oo jawaabka kan uga dhigayay Holaako si uu u ogaado siday uga go'an tahay dirirtu. Holaako waxa uu ka fidiyey al-Kaamil Muhammad al-Ayyubi been iyo propaganda. waxa uu ku tilmaamay inuu yahay al-Kaamil Muhammad nin argagixiso ah oo ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah iyo xeerarka adduunku dhigtay. waxa uu sheegay Holaako inuu og yahay ninkan inaanu ahayn nin diinta Islaamka matala, Holaakana uu ka dharagsan yahay in diinta Islaamku tahay diin nabadgeliyo ee aan ahayn diin dagaal iyo dirir u tafahaydata. intaa kadib Holaako waxa uu u soo diray ciidan aad u fara badan oo uu hogaaminayo wiilkiisii Ashmud bin Holaako si uu u soo afjaro arrinka ninkan argagixisada ah ee ka hor yimi nabad wadaha bariga dhexe ee Holaako. ciidankaasi wuxuu soo maray magaalada Muusil oo uu u baneeyay maristeeda al-Amiir Badruddin Lu'lu, kana qabtiray ciidankii Tataarka ahaa Saad iyo Baad waxay u baahnaayeen. waxa go'doon la geliyay magaaladii Miyafarqiin, waxaana ka qayb qaatay go'doonkaas ciidamadii boqortooyada Armenia iyo boqortooyada Georgia oo labaduba Kristan ahaa, halka maamuladii Islaamiga ahaa ee ka agdhawaa magaalada Miyafarqiin ay garabkeeda ka baxeen. an-Nasir Yusuf oo ahaa amiirka Dimashq iyo Xalab kuma u gaabsan inuu garab siiyo Holaako iyo inuu ka qayb qaatay go'doonkii lagu hayay magaalada Miyafarqiin, iyadoo weliba ay isxigaan al-Kaamil Muhammad oo ay isku Ayyubiyiin ahaayeen. balse waxa uu ku sii darsaday duulinimadaas iyo khiyaamadaas inuu wiilkiisii u diray Holaako, isagoo ka dalbanaya inuu Holaako ku caawiyo ciidan Maqool ah si uu u qabsado Masar oo uu maamulkiisii ugu darsado. arrinkaasi waxa uu ka cadhaysiyay Holaako oo arkay inuu ninkani ka talinayo aayaha naftiisa ee aanu ka talinaynin aayaha imbaraatoriyadda Tataarka. waxa uu u diray fariin goodin ah oo uu ugu cagajuglaynayo, taasoo cabsi gelisay an-Nasir Yusuf ilaa uu dhulkii hayn waayay. kadib waxa uu iclaamiyay jihaad ka dhan ah Tataarka, isagoo oo dantiisu ahayd ilaashiga kursigiisa. jihaadkaana uu ka dhiganayay mid uu awrkiisa ku kacsanayo. mabda' la'aanta ninkani waxa ay gaadhay inuu kaalmo ka dalbaday suldaankii ka talinayay Masar ee Mamaaligta iyo inuu kala qayb qaato dagaalkan ka dhanka ah Tataarka. sidoo kale waxa uu gurmad ka dalbaday al-Muqiit Umar nin la odhan jiray oo ka talinayay boqortooyada Karag oo maanta ah Urdun, kaas oo ahaa mid isagaba dhibca dheer xagga khiyaamada iyo midabaynta. Holaako markii uu ka war helay falka uu ku dhaqaaqay an-Nasir Yusuf, waxa uu soo gurgurtay dhanka magaalada Xalab. waxa uu ka soo baxay magaalada Hamadan. waxa ay soo jiireen ciidankiisu buuraha dhaca galbeedka Iiraan, waxa ay ka soo galeen Ciraaq dhanka waqooyi bari, waxa ay soo dhaafeen magaalooyinka Arbil iyo Muusil, waxaana ay ka soo gudbeen webiga Dijla ilaa ay ka soo gaadheen magaalada Nasiibiin. hore ayuu ka furtay. waxa uu ku sii xigsiiyey magaalada Harran oo ah magaalada uu ka soo jeedo Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah. waxa uu ka sii gudbay magaalada Arraha iyo magaalada Albira oo kulligood dhaca koonfurta Turkiga. magaalooyinkani waxa ay hoos imanayeen maamulka Salaajiqada oo ay madax ka ahaayeen labadii boqor ee Kawskii labaad iyo Khalj Arsalaankii afraad oo ka mid ahaa gaashaanbuurta Holaako, balse karti ay afka ku kala furaan markii la qabsanayay magaalooyinkooda may lahayn daawasho mooyaane.
هولاكو waxa uu soo gaadhay Xalab sanadkii 658 hijriga go'doon ayuu geliyay magaaladii dadkeediina way diideen inay isdiibaan waxaana horkacayay oo hogaaminayay muslimiinta go'doonsan Tooran Shah oo ahaa adeerka An-Nasir Yusuf majaaniiq ayay kala daareen tataarkii magaalada madaafiic ayaa habeen iyo maalin lagu garaacay marnaba kuma fikirin An-Nasir Yusuf inuu dadka muslimka ah ee uu 300 kiiloomitir u jiro inuu gurmad u fidiyo intii lagu gada jiray go'doonka Xalab ayay ku dhacday magaaladii Miyafarqiin gacantii Moqolkii dul fadhiyay sanadka iyo barka markii ay tataarku galeen magaalada waxa ay ka dhigeen meel cid kasta oo Moqolka hor istaagta ay ku cibro qaadato waxa ay laayeen dhammaan dadkii ku noolaa magaalada qofna may bixinin Al-Amir Al-Kamil ibn Muhammadna nolosha ayay ku qabteen kadib waxa loo soo diray Hoolaako oo dul fadhiya Xalab markii Hoolaako loo soo gacan geliyay waxa uu guda galay inuu ka argoosto uu gaajaysiiyay oo waxa loo diiday cunadii iyo cabitaankii inta kadib isaga oo nool ayaa xubnihiisa la jaray oo lagu qasbay inuu xubnihiisa cuno afka ayaa loo kala qaban jiray markaas qasab lagu gelin jiray hilibkii isaga laga jaray ilaa uu sida ku geeriyooday Al-Amir Al-Kamil Muhammad Al-Ayyubi ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye muslimiintii Xalab niyad jab aad u weyn ayaa soo food saaray markay maqleen in Miyafarqiin ku dhacday gacanta Moqolka iyo inuu geeriyooday halyeygii muslimka ahaa ee Al-Kamil taas oo ku dhalisay inay isdhiibaan balse waxa ka hor istaagay oo in badan waaniyay Tooran Shah laakiin dhagaha ayay ka fureysteen kadib isaga iyo intii la aragtida ahayd waxa ay galeen oo dhufays ka dhigteen qalcad adag oo magaalada ku dhex taalay dadkii Xalabna albaabada ayay u fureen tataarkii markii tataarkii gacanta ku dhigay magaalada waxa uu amar ku bixiyay Hoolaako in la laayo muslimiinta kristankana la magan geliyo kadib waxa ay dumin iyo dirir ku qaadeen qalcadii uu ku jiray Tooran Shah 4 isbuuc oo jihaad iyo geesinimo ay soo bandhigeen muslimiintii ku jiray qalcadu kadib tataarkii qalcadaas way furteen Tooran Shahna waxa uu ku dhacay gacanta Hoolaako balse waxa yaab leh Hoolaako halyeeyga muslimka ah uu nabad geliyay amaan buuxana wuu siiyay taariikhyahanada qaarkood ayaa sheega in falka Hoolaako ay sabab u ahayd inuu la dhacay halyeeygan geesinimadiisa iyo raganimadiisa Hoolaako waxa uu shirweyne isugu yeedhay boqoradii isaga hoos imanayay kadib shirkii markii uu furmay waxa uu u sheegay go'aamada uu qaatay oo kulligood ay sanduulo ku tahay go'aanka koowaad boqorka Armenia waxa uu ugu abaalguday dhammaan qaniimooyinkii laga helay magaalada Xalab iyadoo lagu abaalgudayo ka qayb qaadashadii uu ka qayb qaatay furashadii Baghdad Miyafarqiin iyo Xalab qodobka labaad labadii boqor ee dawladda Saljuuqiya ee kala ahaa Kikauska labaad iyo Qalaj Arsalaankii afraad waa in ay u celiyaan boqorka Armenia dhammaan magaalooyinkii iyo qalcadihii muslimiintu ay hore uga qabsadeen boqortooyada kristanka ah sidaasna labadaasi boqor way sameeyeen waana ku wareejiyeen magaalooyinka muslimka ah xaakimka gaarka ah qodobka saddexaad boqorka Antakiya ee kristanka ah waxa uu abaalgud uga dhigay magaalada Al-Laadiqiya ee muslimka ah waana lagu wareejiyay Hoolaako waxa uu qaatay go'aan afraad oo ka dhan ah boqoradii kristanka ahaa ee la jiray waxa uu bedelay boobkii guud ee kaniisadda Roma oo uu ku bedelay boob ka socda Greega taas oo u dhignayd inuu boob Orthodox ah uu boob uga dhigay bulsho Catholic ah waa iyadoo muslimka sunniga ah looga dhigo sheekh guud wadaad Shiici ah danta uu kala ahaa Hoolaako waxa ay ahayd inuu boqoradan kristanka ah dareensiiyo inay agtiisa ka yihiin adoomo yaryar oo adeegayaal ah ee aanay u malayn inay wax dheer yihiin kuwan muslimka ah ee la silcinayo ciidankii Moqolka ahaa waxay u soo gurgurteen dhankii magaalada Hims iyo Hamaa markaas ayay ka hor yimaadeen madaxweyntii magaalada Hamaa iyagoo oo sida furihii magaalada ammaan ka dalbanaya markaas ayuu Hoolaako ammaan dhab ah siiyay magaaladaas waxa uu ku xigsiiyay magaalada Hims oo uu ka talinayay boqor ay Ganshaanbuur ahaayeen oo ah Al-Ashraf Al-Ayyubi
iyadana hore ayuu u sii dhaafay manuu gelin waxaana uu toos u abaaray magaalada Dimashq. Markii uu maqlay An-Nasir Yusuf in Holaako isaga ku soo wajahan yahay waxa uu shiriyay ciidankiisii iyo hogaamiyaashiisii waxaana ay isku afgarteen inay dhabarka jeediyaan oo magaalada ka baxsadaan taas oo ka mid ahayd khiyaamooyinkii isdaba joogga ahaa ee uu kala talaabsanayay An-Nasir Yusuf. dadkii magaalada Dimashq ayaa kulmay iyaga oo ka arrinsanaya aayahooda markay ogaadeen in boqorkoodii firdhaday kadib waxa ay isku raaceen inay qaadaan dhabadii ay qaadeen reer Xamaa. markay arrinkaas isku raaceen reer Dimashq waxa ku gacan sayray oo diiday in yar oo mujaahidiin ah oo dhufays ka dhigtay qalcad magaalada dhexdeeda ku taal. intii aanu soo gelin Holaako magaalada Dimashq ayay soo gaadhay geerida boqorkii guud ee imbaaratoriyadii Tataarka ee Manko Khan taasoo ku qasabtay inuu ku laabto caasimadii Maqoolka ee Qoraaqorum. balse intaan u gaadhin isaga oo maraya magaalada Tabriz ayuu ka war helay in Qoblay Khan loo doortay boqorka boqortooyada. magaaladaas ayuu ku nagaaday Holaako in muddo. Tuubiyaweyntii magaalada Dimashq ayaa soo qaaday furihii magaalada waxaana soo dhaweeyay Katboqa Noyan oo ahaa ku-xigeenka Holaako ahaana nin qaatay diinta Kiristaanka. ciidamadii Tataarka ahaa ayaa si tooq leh u soo galay magaaladii Dimashq waxaana ciidanka horkacayay 3 hogaamiye oo Kiristaan ah taas oo sii lama laabtay murugadii dadkii muslimiinta ahaa. caasimadii Amawiyiintu waa taa ku dhacday gacanta Maqoolka sidii horeba gacantooda ugu dhacday caasimadii Cabbaasiyiinta ee Baghdad. ammaan dhab ah ayay u fudiyeen Tataarku reer Dimashq cidna kama ilayn intii yareed ee qaacada ku jirtay mooyaane. taariikhduna waxa ay ku beegnayd 658 hijriga markaas oo laga joogay qabsashadii Baghdad 2 sano oo qura. Katboqa Noyan waxa uu u diray ciidan Maqool ah si ay u soo qabsadaan Filistiin kadib waxa ay la wareegeen magaalooyinka Nablus, Gaza ilaa ay gacanta ku dhigeen dhammaan Filistiin halka aanay taabanin maamuladii Kiristaanka ahaa ee ku daadsanaa dhulka ay marayeen.